muuqaalkan aan soo daawateen waa ciidan markaas uu horkacayo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo xilligan ku sugan aaga madaxtooyada waxaanu halkaasi ka wadaa abaabul xoogan oo kaga soo horjeedo waa dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo markaas ku sugan waa aaga madaxtooyada Soomaaliya ayaa halkaasi abaabul xoogan ka wadaa waxaanu soo bandhigay hubbi ciidan markaas aad u hubaysan oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dabaabaadka markaas ka hortaga qoryaha markaas lagu rido baabuurta culculus oo halkaas uu ku soo bandhigay رئيس الوزراء هو سومالي حسن علي خير ومركان كمدة حملة سياسية معاركة سيد وين وسور جدا دولة فدرالك الصومالية أيام دون جود بوحة وذي ومركز الرغاية سياسية وكوسور جدا ودولة فدرالك الصومالية قلبت مقدشة ويكل حرنتاي سياسية معارضة مركز وحيدونيا برنامج وجود بي مركزي يقصوا بردق لهان بريتو مقالة عاصمة مقدشة دولة دمارة يقول هذا مركز وحيدونيا حملة معارضة إن مركز قبطان برنامج وين يوسور جدا حملة سياسية ومركز دولة فدرالك الصومالية كلن ومركز يرجو صدر مدحينا الصومالي حسن شيخ محمود ولكل ما رئيس الوزراء حسن علي عرادي ومدحينه ورئيس جمهورية الفدرالكا يكون الجار الشيخ شريف شيخ أحمد أي وركاس النتيجة الآن كسر الماضي لبقى قطب أيود البدي وأمر شريف شيخ أحمد مدحينه ورئيس مركز دولة يكون الجار waxa sheegay in madaxweynuhu talada dhaxda soo dhigo oo markaas miiska wada hadalka la isugu yimaado hadii uu u baahan yahay inuu si degdeg ah ula kulmo madaxweynaha markaas toddobaad ee Jumhuriyadda ku meel gaarka ahayd in markaas uu gurigiisa u degan yahay oo xilli walba uu imaan karo ayuu sheegay waa markaas madaxweynaha hore ee Jumhuriyadda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed oo la kulmay ergey ka socotay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulan goor ku soo dhamaaday madaxtooyada oo markaas uu ka degan yahay aaga Marinayo waa markaas madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed kulankaasi ayaa natiijo laan ku soo dhamaaday galabta Muqdisho way ceerceeraysaa waxayna qarka u saaran tahay inuu markaas uu dagaal ka dhex qarxo xubnaha mucaaradka iyo markaas dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada taabacsan Xasan Cali Khayre ayaa xilligan waxay ku sugayeen aaga madaxtooyada Soomaaliya halkaasi dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wadaan waxay doonayaan inay ka hortagaan waa markaas ama berrito barnaamij weyn ay ka qabtaan aagaasi sidoo kale dawladdu waxay soo saartay in markaas loo ogolayo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka inay markaas barnaamij ay qabsan karaan hase yeeshee waxay shuruud uga dhigtay in saddex aag oo kaliya waa garoonka Injineer Yarisow aaga jaamacadaha iyo Koonis garoonka la yiraahdo inay markaas barnaamijhaasi ay ku qabsan doonaan mucaaradku markaan way baratumanayaan waxay la doonayaan inay la wareegaan inta badan markaas xubnaha mucaaradka barnaamij weyn ay ka doonayaan inay ku qabtaan magaalada caasimadda Muqdisho wixii ka dambeeyay markii ay dhamaatay waa markaas madaxweynekii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradku waxay wadeen saansho markaas si waliba ay markaas u doonayaan inay markaas barnaamij weyn ay ku qabtaan magaalada caasimadda Muqdisho tani markii uu dhamaaday 15 May wixii ka dambeeyay mucaaradku barnaamijyo isku dayeen 10 May ayay qabteen oo markaas 15 May ay ku aadiyeen barnaamijyo dawladdu way fashilisay barnaamij kale ay hadana qabteen bartamaha bisha aynu soo dhaafnay asaate kaasina fashil ayuu ku soo dhamaaday markan mucaaradku waxay doonayaan in barnaamij ugu weyn ay ka qabsadaan magaalada caasimadda Muqdisho inta badan caasimadda waxa ku sugan ciidamo ka soo xarooday aagaga daafaha magaalada caasimadda waxayna markaas ay doonayaan in xaaladdu dhinac waliba markii haddii dagaal laga fogso waayeen inay dawladdu dagaal gashay diyaar u tahay halka mucaaradku ay markaan wataan hubkii ugu dambeeyay waxayna doonayaan in markaas ay dagaal la galaan dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordhay xiisadda cakiran iyo Xasan Cali Khayre oo markaan la soo baxay hub aan hore loogu arag mucaaradka barnaamijyadeena dabayaad ku daawan doontaan muuqaalka meel fog gaarsiya nuguna soo biiraysa aad weeshaan xogii ugu dambeeyay naga soo gaara gudaha Soomaaliya aad baad mahadsantihiin